madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafuray shirweyne lagu dhexdhexaadinayo isla markaana xal lagaga gaarayo dagaal beeleedyo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Galgaduud kaasoo iskaga hor yimaadeen laba beelood oo ka soo kala jeeda Xeraale iyo Cabudwaaq shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wada dhaqameedka labada beelood mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ayaa intuu socda waxa lagu jajixi doonaa isla markaana lagu lafaguri doonaa halka ugu dhow ee laga gaari karo colaadan sokeeye ku soo laabatay gobolka Galgaduud iyo deegaanada Galmudug madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa guddi culimo u saaray xalka gaadista labadan beelood waxaana uu kula dardaarmay inay si hufan u wajahaan xalka gaarista iyo dawada labadan beelood ee walaalaha oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamaya gobolka Galgaduud asbuucii la soo dhaafay iyo maalmahan ba waxa gobolka Galgaduud ku soo laabanaya dagaal beeleedyo iskaga hor imaanayaan beelo walaalaha iyagoo halkaas wada degaa